in muddadii sidaa sheekhu sheegay aynu soo shaqaynay 4 bilood ahayd maadaama xanuunkii intii badnayd ama culayskiisii loo arkay adduunyadiinu uu dhacay laakiinse uu noqday xanuun loo baahan yahay in lala noolaado inaan ku dhex jirno uu noqday oo safmar ilaahay nooga dhigay magacii safmarkaan isticmaalay runtii ilaahay uu nooga dhigo safmar buu noo noqday oo dee dhibaatadii uu u geeyey ama u geystay waddannada qaarkood inama gaadhsiinin saa darteed guddiga heer qaran ee kahortega iyo maaraynta xanuunka covid-19 waxa ay hore u soo saareen go'aamo la xidhiidha xayiraado la saaray qaybo ka mid ah adeegyadii iyo shaqooyinkii gudaha dal ka socday sidoo kale waxay yadna xayiraad la saaray ahayd duulimaadyadii diyaaradaha rakaabka ee ka imanaya dibadaha iyo isku socodkii xuduudaha dalka hadday tahay dhulka iyo baddaba haddaba guddiga iyagoo ogsoon inay weli jirto khatartii xanuunka covid-19 bulshada dhexdeeda ku faafi karo ummaddana si weyn ugu adkaynaysa in qof walba oo naga midii muujiyo taxadir iyo mas-uuliyad dheeraada oo xanuunkan laga hortegayo guddiga heer qaran iyagoo haddana mudnaanta koowaad siinaya in si kasta oo loo yarayn karo culays iyo cidhiidhi ku yimaada habsami socodka nolosha bulshada reer Somaliland ee maalinlaha ah guddiga heer qaran iyagoo oo si dhab ah u dareensan maskaxdana ku haya saamaynta ay nolosha bulshada iyo dhaqaalaha ku yeelan karto haddii la sii wado xayiraadaha ka dhashay xanuunkani covid-19 awgii guddiga qaranka iyagoo ka duulaya dhammaanba qodobada kor ku xusan iyo weliba duruufaha gaarka ah ee ku gadaaman ama uu la yimiday xanuunkan coronavirus la yimiday sidaa darteed guddigu waxay laga maarmaan iyo daruuri u aragtay in dib u eegis iyo qiimayn iyo wax ka beddel lagu sameeyo dhammaan go'aamadii iyo xayiraadihii ay guddiga heer qaran hore uga soo saareen ka hortegga iyo la tacaalidda covid-19 haddaba guddiga heer qaran ee ka hortegga iyo maaraynta xanuunkani waxay bulshada jamhuuriyadda Somaliland guda iyo dibadba iyo cid kasta oo ay khusayso halkan ugu wargelinayaan go'aanadan soo socda kow in laga bilaabo 30 bisha Juun oo dhammaadka bishan ah guddigu waxay gebi ahaanba qaadeen dhammaanba xayiraadihii la saaray nooc kasta oo ka mid ah adeegyadii iyo shaqooyinkii dalka gudihiisa kuwaasoo hor loogu xayiray xanuunka awgii sida adeegyadii waxbarashadii ganacsiga hoteeladii gaadiidkii wixii la mid ah waxaa waajib ah in adeeg iyo shaqo kasta oo laga qaado xayiraaddo ay u hoggaansamaan dhammaan habraacyada qaranka ee loo dejiyey qodobka labaad waxay guddigu qaadeen dhammaan xayiraaddii la saaray iyadana duulimaadyadii diyaaradaha ee rakaab keenayey kana soo degaya madaarada dalka sidoo kale waxaa iyana laga qaaday dhammaanba xayiraaddii la saaray isku socodka xuduudaha laga soo galo xagga dhulka iyo badda iyo cirkaba waxaana waajib ah in mar walba loo hoggaansamo dhammaanba habraacyada qaranka ee loo dejiyey ka hortegga faafidda covid-19 qodobka saddexaad waxay guddigu ku wargelinaysaa dadka dalka dibaddiisa ka imanaya ee ka soo degaya ka soo galaya xuduudaha ama dhulka ka soo galo ama cir ama bad in qof kasta uu sito ama uu ka soo qaato dalka uu ka soo dhoofayo warqad caddayn ah oo ay ku caddahay inaanu qofkaasi qabin xanuunka coronavirus ama covid-19 negative test saartifkeeduna sito warqadda caddaynta waa inaanay muddadeedu ka badnaanin 4 cisho maalinta uu qofka dalkaas soo galayo guddiga waxay halkan si cad u bayaaminaysaa in qofka aan sidan wax caddayna oo ah negative testigaasi aan sidan balse ka soo dega madaarada dalka uu galayo karantiin uu isagu isku qaba kharashkiisa qodobka afraad waxaa habraacyada loo dejiyey ka hortegga faafidda xanuunkan waa awaamiirka soo baxday guddiga qaranka ee ka hortegga covid-19 oo leh awood sharci iyo mid fulineed sidaa darteed guddigu waxay bulshada ku wargelinaysaa cid kasta iyo hay-ad kasta iyo meherad kasta
oo hoggaansami weyda habraacyada loo dejiyey waxay mudan doontaa ganaax lacageed iyo weliba ciqaab xabsi ah haddii laga maarmaan loo arko macnuhu waxay murtida ku ururayaa haddaynu xayiraadihii qaadnay maaha fantashiru fil ardi maahine inaynu qof kasta iyadoo waxaan soo diyaarinaya ilaa bisha 30keeda waxaas habraacyadaasoo sawirraa oo kala goongooniya mid walba habraacii maskiidka laga dhaqmayey kii waxbarashada laga dhaqmayey kii hodheela laga dhaqmayey shaqo kastaba habraacii laga dhaqmayey oo sawira oo muuqaal dadka ah oo aan ku faafin doono dhammaan magaalooyinka waaweyn ee dalka aan ku faafin doono marka taas waxaa la rabaa in la ixtiraamo oona ay noqonin uun waa layna fasaxay oo weli maadaama xanuunkii jiro aynu rabnay inaan saa hore u sheegnay inay mas-uuliyad dhammaanteena saaran tahay inaan wixii ilaalino kala fogaashihii afsaabkii ilaa inta ilaahay masiibadan inaga maartay dhammaan ina dhaafinayo wabillahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu